maadaama adduunku mudana gudoomiye digital noqday si khataraha lacaguna ay bateen adduunka oo dhan oo ay ku jirto dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed waxa loo soo jeestay in la yareeyo khataraha ka iman kara lacagaha qulqulay mar haddii qawaarijta looga soo adkaaday dagaalka dhanka hoodka ay ku dhumaaleysanayeen ayaa dhanka kale waxa si xooli u socda dagaalka dhanka maaliyadeed ee lagu cuuriyaaminayo qawaarijta xafiiska xeerlaalaha guud ee qaranka oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ayaa il gaar ah ku hayay ilaha dhaqaale ee qawaarijta mari karaan waxa uu gacanta ku soo dhigay Cabdinuur Aadan Ibraahim oo ahaa agaasimo ka tirsan wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana la horgeeyay maxkamadda awoodda u leh qaadida dacwadiisa maxkamaddu waxa ay diiday isurtaag ay soo gudbiyeen qareenada difaaceeda sanayaasha maadaama xafiiska xeerlaalaha guud uu soo gudbiyay warqad cadeynaysa in faldimbeedku uu ka dhacay gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Xamarweyne laanta bangiga Salaam Bank ee ku taal degmada Xamarweyne sida darteeda maxkamaddu waxay diiday isurtaag ay soo gudbiyeen qareenadu waxayna faraysaa xafiiska xeerlaalaha guud inuu galo soo bandhigista cadeymaha iyo dacwad oogisiisa si waafaqsan qodobka 114 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanaha ayaa waxaa loo haystay kamid ahaanshiyaha kooxaha qawaarijta al-shabaab waxaa sidoo kale uu ku eedeysnaa maalgelinta argagixisada iyo lacag dhaqidda waxaana xafiiska xeerlaalaha guud ee qaranka oo eedda u gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir uu sheegay in eedeysanaha uu sameystay koontooyin laga furay bangiyada dalka kuwaas oo ay martay lacago ku dhow 300,000 dollar intii u dhaxaysay 18 bishii Juun ee sanadkii 2021 ilaa dhamaadkii sanadkii 2022 xeerlaaliye ku xigeen Farxaan Xuseen Maxamed ayaa maxkamadda gobolka Banaadir horgeeyay dhaqdhaqaaqyada akoonnadaasi iyo sidoo kale sida loo isticmaalay lacagaha akoonnadaasi maray waxaa sidoo kale uu horgeeyay cadeemo kale oo lid ku ah eedeysanaha markii koontada la fiiriyo mudana gudoomiye lacagtu waxay ugu soo dhacaysaa koontada sidaan sheegay dad kale oo kooxda argixisada ay ka imaanaysa dad kale oo kooxda argixisada ay si weyn uga imaanaysaa lacag weyn oo 70,000 20,000 30,000 ayaa ka imaanaysa kadib lacagtaas waxaa loo bixinayaa qaab isku mid ah oo 300 bay koontadiisa uga baxaysaa lacagtu si weyn ay ugu soo dhacaysaa qaab isku mid oo 300 ay u baxaysaa ilaa waxa dhex martay konton transaction konton marba bangigaas lacag laga saaray ama koontadaas lacag laga saaray konton ka jeer markii hal mar laga reebo hal transaction markii laga reebo 49 kale waxay u baxeen si isku mid oo 300 waa page-ka labaad ee bank statement-ka markii la fiiriyo haddana waxa xusimadan mudana gudoomiye in tusaale in ku dhow 30 mar ay wanday bixin oo hal maalin tusaale 14 bishii shanaad 2022 hal maalin ah ayaa 30 jeer oo isku mid ah waxa laga saaray 300 15 bishii afraad 2022 oo bishii ka horeysay bisha shanaad ah ayadana saas oo kale ayaa 300 hal maalin laga saaray dad means waxay ku tusinaysaa ama taamicneedu mudana gudoomiye waxa waaye markii la fiiriyo bog labaad waa isku mid kaliya sidaan sheegay eedeysanef ayaa waxay soo dhigaysaa 22,000 baa mushaar ahaan loo bixinaya halkaas mudana gudoomiye waxa laga cabiri karaa shaqadii uu eedeysan uu u hayo koox oo ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee ah mushaar bixinta dhammaan pages-ka bank statement-ku mudana gudoomiye sidaas ay muujinayaan muddo hal sano ayuuna shaqadaas hayay statement-ga markaad si fiican u fiiriso pages-ka qaar dhammaan waa 300 bay ku baxaysaa wax soo dhaxgalay xitaa ma leh eedeysanaha ayaa ku dooday in akoonnadaasi ay lacagta badan martay uu lahaa wiil la ilmaadeena oo ku nool hadda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya balse ma yaqaan halka loo dhaafiyo magaca saddexan oo in adeerkiisa xasan maxay isku tiin adiga
حسن waxaa isku nahay qaraabana qaraabo sidee oo ilma adeer inta in la ego wallahi adiga ma had waxay abtirkii iyo waxay meesha si iimaaneen kulli ma xasuusto laakiin in ilma adeer nahay oo isku deegaaneen ho ilma adeer maxaa u taqaan adiga ilma adeer waxa u aqaana dadka oo ma taqaana qaraab ahaan ehel ahaan isku abtirsado oo isku dhow oo haddana ma taqaana isku deegaan oo meel ku wada yimid farqi ma u dhaxeeyaa qaraabo iyo ilma adeer qaraabo hadee oo qaraabo guud waa ka sokeeya ilma adeer nahay laakiin in hebel si ilma adeer ku tiinood abtirado abtirsa adigana asagana waa abtiri ma asoo abtirkiisa Xasan Ibrahim Xasan Mudaafi kari Xasan Ibrahim Xasan Mudaafi kari ilma adeer say ku tiin marka waa on ilma adeer nahay kurgooga ilma adeerna nahay oo adeerkii dhalay adeer ray dhihi jir marka doo adeerkii u dhalay aniga saas adeerkii ku inaan adeer ku nahay waxaan rabaa nina abtirkiisa aqoonisa ilma adeer ku tiin abtirkiisa ma taqaaniin waxaan ku nahay ninka isku deegaan nahay adeer aan ma taqaana aabiis aan dhihi jiro aabiisna waa loo waa adeerkii inuu yahay laakiin in hebel hadii hadda aan dhihi karin cid kasta oo isku deegaan ilma qaraabo miya ilma adeer miya la isku deegaan dhahday hada isku deegaan tiina ma okay hadii qaraabo noqdo waxma ku jaban qareenka u dooday eedeysanaha oo lagu magacaabo Axmed Cabdiraxmaan Sheekh Diiriye ayaa fagaaraha maxkamadda la yimid doodani waxaana uu sheegay in eedeysanaha uusan lahayn akoonadan lagu aruuriyay lacagaha isla markaana uu kaliya ka ahaa damin taa waxay khilaafsan tahay habraacyada cadeymaha ee xeerarka Soomaaliyeed tilmaamaya sababtoo ah qof sawirkiisa calaamad uma noqoto inuu dambiilay sawirkiisa xilli kasta laga qaadi karaa markuu shaqadiisa joogaa laga qaadi karaa inuu tagay Salaam bangi oo uu damiin ahaa isaaba qiraayaba sawir laga qaaday in la soo bandhigo wax macna gaar oo ay sameynayso mal waxa macnaha sameynaa waxay ahayd hadii la heli lahaa sawirkiisa soo dambi gacanta kula jiro hadii la heli lahaa dambi uu sameynaayo ama cid uu wax ku sameynaayo ama lacag uu cid si qaldan uga qaadayo ama lacag uu dhaqayo oo lagu sawiray taas marag muujin noqoleed laakiin qof Soomaaliyeed sawirkiisu dambi muujin ma in Salaam bangi la tagay dambi maahan in qof akoon furana la damiintay dambi maaha in Salaam bangi uu sawir ka qaado marka qof damiinanaysa dambi maaha in sawirkaaga akoonka la saaray dambi maaha akoonka xitaa inay lacag dhaxmartay dambi maaha حتى أكون إني دم لعقد أحمر تيدم بما وحنقول الجيدة عبد النور آدم إبراهيم أكون كو دمينك كيا أولياء حسن إبراهيم حسن إن أي مرتي مدة سنة كبر أما مدة لا بس سنة كدوادا لعقل هو بقول يسقاشن يشم كون دم بما mushaarka uu qaadanaya ayaa ahaa canshuur laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed waxaase uu lacagaha akoonadiisa uu ku hayay ama maray ay ahaayeen kuwa si qasab ah looga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed isla markaana lagu dhibaateynayay waa sida uu ku dooday xeerlaaliye ku xigeen Farxaan Xuseen Maxamed asaga ogolaaday in lacag 300 kun oo si sharci darro ah ay ku sameysay kooxda argagixisadu oo dadka Soomaaliyeed ay ka qaaday si baadan uga qaaday in uu ku hayo koontadiisa ku maamulo kadibna kooxdu ay ku fuliso ujeedooyinkeeda gaarka saas daraadeed mudane gudoomiye aniga oo soo koobaya xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku si waafaqsan qodobka 110 wax shakiya ugama jiro maxkamadda horteeda in eedeysanuhu uu galay dembiga lacag dhaqista dembiga maalgelinta argagixiso iyo dembiga ka mid noqosho urur argagixiso waliba asagoo ah shaqaale dawladeed oo qaata mushaar ay dawladda Soomaaliya siiso oo ah canshuurta laga qaado ummadda Soomaaliyeed asagoo oo dhinac ka dhibaateynaya ayuu dhinac kalena lacagtoodii qaadanaya gabagabadii dacwadda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa codsaday in eedeysanaha lagu xukumo qodobada lagu soo eedeeyay isla markaana uu maro ciqaabta ku xusan qodobadaasi maxkamadda sharafta leh xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku wuxuu maxkamadda ka codsanayaa inay eedeysanaha ku hesho dhammaan saddexda eedood ama saddexda qodob ee ku soo eedeynay mid kastana ay ku xukunto ciqaabta ugu badan ee ku xusan maadaama eedeysanuhu uu double agency ah qareenka difaacaya eedeysanaha oo lagu magacaabo Axmed Cabdiraxmaan
ayaa dhankiisa ka codsaday maxkamadda gobolka Banaadir in eedeysanaha lagu waayo dambiyada lagu soo eedeeyay isla markaana loo ogolaado xurriyadiisa. maxkamadda gobolka Banaadir qaybteeda ciqaabta inay bari yeesho muwakkilkayga Cabdinuur Aadan Ibraahim saddexda eed ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ku soo eedeeyay ay ka bari yeesho maadaama cadeyntii aan la keenin xurriyadiisana dib ay ugu celiso maadaama uu yahay shaqaale dawladeed aaba Soomaaliyeed oo muddo 6 bilood ka badan u xirna eedan cadeynteedina maxkamadda aan la horkeenin. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Dabana oo ahaa garsooraha dacwadda ayaa dacwadda soo gabagabeeyay waxaana uu sheegay in xukunka ay soo saari doonto maxkamadda gobolka Banaadir si waafaqsan qodobka 119 faqradiisa shanaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu halkaas ay ku soo gabagabeysay dhageysiga garmaqalka kiis dacwadeedka ciqaabta ee loo heystay eedeysane Cabdinuur fadhiga maxkamadduna halkaas ayuu ku xiran yahay dacwadina halkaas ay ku dhamaatay ku dhawaaqasana maxkamadda dib ku soo muday doonto insha Allah taala. Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.